السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتين قالقة وأنا بطقبتان رجينايا أصحابت آد كودنايسا HTML CSS إن بروجكت يركو سميان أما أصحابتو ذا كواب صدان ما أنت واحدين هايا برامج كان ير وريسبونسيف كاريس واي محلها HTML CSS وكلي واي هدي وباهنتا إنا سودك ستو كودك أصل كيس وقرني هاي isagoo diyaarsan waa la degaysaa oo kaliya hadaa rabto inta muhiimka ku ah kala bixi kartaa hadaad doontina sidiisa u isticmaali kartaa waxa kala soo degaysaa daba website-keena sidan oo kale inta imaanaysaa waxa markaa ku qoraysaa UST maanka ustaad maanka la isaga soo gaabiyay inta markaa qorto search markaa u dirto linkiga ugu horeeya oo arkaysaa oo maleynaya linkigan ku dhufo halla markuu ku soo kaco website-ka sidan oo kale oo arkaysaa waxyaabo fara badan ayaa yaala hadda isaga waa kan maxaa la yiraahdaa hadii aad u baahnayd waxyaabo badan ayaa yaala dabcan design badan oo graphic design ki waxyaabahan waa ka heli kartaa post-iyo aad isaga jiraan iska akhrisan kartaa waxyaabo badan baa ku jira laakiin hadda muhiimadeena waxay tahay inaan helno responsive cardiskan xagan waa ku dhufan kartaa hadii mid hore u baahnayd oo kale waxaa sidoo kale ka heli kartaa halkan ku qoran tahay downloads waa arkaysaa oo maleynaya menuska kor meeshaas downloads ay ku qoran tahay HTML CSS ka dooranayna idan waxyaabaha HTML CSS ku dhisan oo dhan ayuu tusi doonaa inta JavaScript la socdo HTML CSS kaliya ma aha laakiin uu soo hoosgalaya dabcan anaga ka hadda doonayna kan waaye marka ku dhufatid oo ku soo furmo sidan oo kale hadda English taqaan akhriso saa faham guud uga hesho marka sawirkan waa iska thumbnail way code waa kan hadda xagan u yaala waa arkaysaa code inta copy waa ku sameeysan kartaa hadii de dibsanaysid ama ka cajisaysidna hoos u soo daadeg hoos markaa timaado halkan waa arkaysaa responsive cards in HTML CSS hadda de badankan download ka hadii ku dhufto waa arki doontaa xagan uu soo qabanaya toos u xitaa page kale kugu maxiraayo si automatic u soo degaya waa arkaysaa aad u fudud yahay dabcan faylka aad u weyn oo 131 KB oo kaliya ah internet aad u weyn ka macuna inaad dejiso soo dhawaada asxaabteena qaaliga ah